sidaad u qaadan lahayd haddaad maqasho ciyaartooygii caalamiga ahaa ee caanka ahaa ee magaciisu ahaa Soomaaliya badan oo kamid ah dadka ciyaaraha xiiseeya labaduba waa run oo ciyaartooygaasi u dhashay wadanka Brazil oo magaciisa caadiga uu yahay Wellington de Rosario Calmon ayaa waxa uu ku magac dheeriyo caan uu ku yahay Soomaaliya waxaana uu ku biiray kooxda loo yaqaano Al-Shabaab ama banaadiga Al-Shabaab ee caanka ee wadanka Saudi Arabia haddaba Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo isgalay ayaa waxa ay noqdeen waxaan ku cusbayn dhagaha dad fara badan oo dhageysanayay warka ku saabsan laacibkaasi oo ku biiray naadigaasi Al-Shabaab sida laga warhayo Al-Shabaab iyo Soomaaliya oo magacoodu isku lamaan yahay sanado fara badan bay ku jireen wararka caalamka oo waa arrin laga dharagsan yahay in ururka Al-Shabaab ay dagaal kula jiraan dawladda Soomaaliya ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay taageersan tahay iyo waliba ciidamada u soo gurmaday ee Afrikaanka haddaba arrintan ayaa waxyaabaha la isweydiinayo waxa kamid ah oo runtiina aad iyo aad aniga ii soo jiitay bal hadda waxaad qiyaastaa talo muxuu odhan doonaa qofka wariyaha ee ka warramaya ciyaarahaasi naadiga Al-Shabaab ay ciyaari doonaan marka uu ka warramayo laacibkaasi wuxuu odhanayaa baa la yidhi sida la sii saadaaliyey dhicina doonta kubadda waxa wata laacibka Soomaaliya kooxda Al-Shabaab ayuu gool u dhaliyay kadib markii uu bartanka ka laaday marka arrintaasi ayaa noqotay mid aad iyo aad dad fara badan u soo jiidatay si xoog lena ay dadku afkaartooda uga dhiibanayeen baraha bulshadu ay ku kulanto